شاف محمد شاكر وأمهد علينا يا سود وينتنا وكمهد علينا يا ويلشي بالله هلكنك وصورتك لي إن هلكن يدو النبضة يسووني مادنا وأمهد علينا يا كل جود انت دمتين وحن لا يا إلهي جنة كورابيو قرعيل ما انت وحاور تاغن رئيس الوزراء هودي وحافردي تاغن سيدو كلا تلياشي عيدا ماذا قلب كسيدا وتاريخ عصب ويسخور ايسا صوماها وعن رواينا ان هدلو دي دقيستان وعن كب الله بايا جيجي ايي يقول علم النبض با غوغشي وغاسكيو قربكي علبوري يقول علم النبض با غوري غرفينتو قعلتو يدورو يقول علم النبض با سفي عن ذي ما مغلو حرنتي جناسي قوية قري علم النبض با دول قدودانو سي قدودان ويا قري علم النبض با قرار أري يجي رسحن كهضني قري علم النبض با سلام قالتويو نجا قدوما رير قري عالو maanta magaalada Gurceel waxa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan iyo dadweynaha inteeda kale reer Gurceel ay u dirayaan fariin ah dawladnimadii Soomaaliya way hana qaaday Soomaaliya way soo noqotay fariintaas ay reer Gurceel dirayaan maanta waxaan ka mahad celinaynaa soo dhaweynta diiran haddaad tihiin walaalaheen reer Gurceel waxaan rabaa inaan idin sheego halkan waxaan u nimid idinka inaan idin shaqayno inaadna amartaan inaad noo sheegtaan qaabkii aan idinkala shaqayn lahayn galmudug dhammaystiran midnimo ku dhisan cadaalad ku dhisan horumar ku dhisan galmudug xooggan oo siman oo u adeegi karta dhammaan shacabweynaha reer galmudug inaan idinla dhisno ayaan idinkugu nimida diyaar ma u tihiin hormuudka ma qaadanaysaan ma nagu hogaaminaysaan dariiqa saxda dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka waxay u yimaadeen inay reer galmudug la shaqeeyaan meel walba oo aan tegey laga bilaabo dhuusamareeb cadaado xeraale huurshe caabudwaaq iyo Gurceel oo aan hadda taagannahay meel walba oo aan tagnay shacabka reer galmudug waxay yidhaahdeen waxaan diyaar u nahay dowlad goboleed u adeegta shacabka reer galmudug waxaan aad ugu faraxsanahay idinkuna inaad fariintii aad soo gudbiseen dadka kale ay soo gudbiyeen waxaan rabaa inaan idin sheego qolo dawlad laguma dhisi karo qabyaalad dawlad laguma dhisi karo nin jeclaysi dawlad laguma dhisi karo dan gaar ah dawlad laguma dhisi karo walaalahay reer Gurceel oo la garanayo taariikhdooda galmudug waxay idinka rabtaa hiilkaasoo ah inaan ku ridno dariiqii saxda ahaa dariiqaasna waxaan aaminsanahay
haddii reer Gurceel ay u mudoobaan inay wax badan ka tari karaan midnimada inta kale ee reer Galmudug waxaan rajaynayaa marka dhalinyarada hooyooyinka gabdhaha Soomaaliyeed odayaasha dhaqanka iyo cid walba oo reer Galmudug oo ay ganacsatadu ugu horeyso inaan iraahdo waxaa la soo gaaray waqtiga la dhisi lahaa Galmudug midaysan tayaysan oo toosan waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin taariikh la yaqaan taariikh ka madax bannaan qabyaalad iyo qoloqolo 1948 halgankii SYL markii ay damceen inay Allah u naxariistay halyeey Cabdullaahi Ciise Maxamuud u diraan qaramada midoobay ama markay waagaas ay ugu yeeri jireen unada si uu ugu soo sharaxo qadiyadda iyo rabitaanka ummadda Soomaaliyeed oo ah in gobonnimo degdeg loo helo wuxuu gumaysigii waqtigaa ku yidhi dhallinyaradii idinka ficiina ahaa oo SYL keensada qofka aad rabtaan inaad u dirtaan qaramada midoobay ha la tallaale maadaama ay sharci ahayd in la tallaalo qofka dhoofaya halgamayaashii iyagoo ka baqaaya in la sumeeyo Allah u naxariistay Cabdullaahi Ciise ayay waxay soo hormariyeen in la yiraahdo Maxamuud Yuusuf Muuro oo ka Cabdullaahi Yuusuf oo naftiisa soo qadimay Cabdullaahi Ciise ninkii u ekaa Allah u naxariistay oo la tallaalay wuxuu u tagay inuu badbaadiyo nafta Cabdullaahi Ciise sida halganku uu qiimo u lahaa waqtiga isaga waayo waqtiga isaga Soomaalidu waxay ahaayeen wadaniyiin waxay ahaayeen dad wada jira waxay ahaayeen dad isjecel waxay ahaayeen dad qoloqolo iyo qabyaaladda ka soo horjeeda waxay ahaayeen dad midaysan Muuro Allah u naxariistay iyo Cabdullaahi isku qabiil ma ahayn isku qolo ma ahayn waxa uu naftiisa u qadimay inuu naftiisa u hibeeyo walaalkiis uu sii wada halganka waxaa la mida 8 wiil oo naftooda soo qadintay si ay maanta noogu ogolaadaan halkan inaan ku caweyno Soomaalinimadana ku xusno 8 wiil ilaahay ha abaal mariya halgankoodii waxa uu kalifay in maanta aan idinla hadlayno aniga Sheekh Shaakir aanu tagnay halgamayaal kale oo ku xareysan qaybta 12aad waxaan maanta ku guuleysanay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan keenno qaybta 12aad si ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay uga howlgalaan waxaa kaloon maanta ku guuleysanay in wiilashii idinka soo jeeday oo idin difaacayay aan ugu sheego qaybta 12aad horteeda in la qaramayn doono ay qayb ka noqon doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay difaaci doonaan dalka xoreyn doonaan gobollada kale ee ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug waxaa kaloon ku soo aragnay qaybta 12aad oo ahaan jirtay lafdhabarta difaaca dalka Soomaaliyeed siday u burburtay waxaan ku soo aragnay dalkeennu sidii uu dib ugu dhacay waxaan xasuusanaa markaan dhalinyarada ahayn inta aniga ila da'da iyadoo la leeyahay cadow ma imaan kara Soomaaliya waayo waxaa jirta qaybta 12aad waxaan geeyay taliyaha xoogga maanta oo qushuucay markuu meeshii arkay dhibka aan aragnay iyo dhismihii dumay iyo meeshii iyada ahayd oo ahayd meeshii difaaci jirtay sharafta Soomaaliyeed waxaan u baahannahay inaan ku celinno meeshii dhib intii aan soo marnay ayaa nagu firan waxaan leenahay marka waa inaan ka barannaa Allah u naxariistay Muuro iyo Cabdullaahi Ciise
inaan ka barannaa 8 wiil oo halgamayaasha ah sababtoo ah waxay ku sifaysnaayeen Soomaalinimo aan liin baxayn marna aan liin baxayn Soomaalinimo aan doorsoomayn Soomaalinimo aan fasaqmayn waxaan rabaa walaalahay reer Guraceel marka inaan u sheego dawladnimada hana qaaday idinku aad hormuudka u tihiin si loogu daneeyo dhammaan shacabka reer Galmudug iyo sharafta Soomaaliyeed meel walba ay joogto idinka ayaa la idinka rabaa dawladduna waa adeegayaashiinii idinka idin adeegaysay waxaan rabaa sidoo kale halkan maanta walaalahay reer Galgaduud iyo walaalahay Riir Hiiraan inaan iyagana ka codsado si walaaltinimaha aan uga codsanno ma isqaban karaan inaan dalka dib u dhisayno iyo in meel halkan aan ka fogeyn Matabaan oo ilguule la yiraahdo in lagu daadinayo dhiig waxaan leeyahay ama reer Hiiraan ahaw ama reer Galgaduud ahaw waa in la joojiyaa dagaalka loona joojiyaa sida ugu dhaqsaha badan haddii Ilaahay yiraahdo waa in qof walba oo gacan ka geysan karta in dagaalka la joojiyo dadkana la islu keeno ay joojisaa qaybna ka geysataa markaasna waa inaan niraahdaa mar dambe aqbali mayno in wiilal ay nooga dhintaan macno darro waa inaan niraahdaa mar dambe ma aqbalayno in carruurteenna mustaqbalkeeda la xumeeyo waa inaan niraahdaa mar dambe yaanan fiirsanin khalad aan wax ka qaban karno waa inaan kulligeen niraahdo wakhtigii dagaalka waa dhammaaday reer Guraceel waxaan galnay wakhtigii nabadda wakhtigii nabadoonnimada wakhtigii midnimada wakhtigii dib u dhiska dalka Soomaaliyeed si aan u soo celinno sharafteenna wakhtigii horumarka waxaan leeyahay marka Guraceel waxaan maanta idinkugu yeerayaa inaad hormuud ka noqotaan wakhtigii nabadda nabadoonnimada midnimada dib u dhiska iyo horumarka Soomaaliyeed waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu